أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل السبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلوة أو متاع استبدوا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما استبدوا فيذهبوا جثاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. casharkii toddobaad ee kan ka horreeyay waxaan ku soo sheegnay in ay biyuhu ku xidhan yihiin nolosha bini'aadanka iyo dhammaan dhulka waxa ku dul nool oo dhan. waxa kalena aynu ogaanaynaa bini'aadanku uma baahno nolosha waxyaalo badan oo dee taageero uga baahan yahay ayaa jira. aayaddu masal waxay ku bixinaysaa xaqa iyo baadilka. baadilka ayaa markaasi ilaahay tusaalaha uu ku bixinaya subxaana watacaala inuu yahay sida daadxoorta oo kale oo daadku marka uu soo dhaco dusha sare wuxuu ku wataa daadxoor iyo wax la wixii uu soo qaaday ee fududaa ayuu dusha ku wataa. tilmaantu markaa waxa weeyaan wax aan qiimo lahayn ayay daadxoortaasi wataa halka ayadda inteeda dambe ay tilmaamayso waama maa yanfacu nnaas fayamkusu fi lardi isla daadkaasi xaggaa sare maadaama wax qiimo aan lahayn uu ku wado ee daadxoortaa qaybta hoose wuxuu ku wataa wax alla wixii macaadin ah ee dahaba ee qiimo leh ayuu ku wadaa. ayaddani markaasi waxay si gaara u tilmaamaysaa qaabka loo helo dahabka marka qaab geology ahaan la baarayo iyo goobo tilmaameed ahaan halkii laga heli kari lahaa ayay si cadaana ay u tilmaamaysaa. lafteeda ayaddani markaasi waxay noo tilmaamaysaa ilaahay cirka wuxuu ka soo dejiyaa biyo kadibna waxa uu biyaha uu soo dejiyey ay maraan togag iyo laago ayay maraan biqadar fasaalat awdiyatun biqadariha tamartoodu intaay tahay biyaha soo degay xataa dhinaca dahabka oo kale markaynu nahno native goolka ku samaysan quartska oo kale ku samaysan milk quartska kuna naban oo kale native goolka aan dhahno kaa laftiisa ayaa daadku marka uu farabato ee uu xad noqdo gerbiyadana uu markaasi uu jejebiyo ayaa wuxuu soo qaadayaa kaa laftiisa qaybtaasina hoosta ayuu marinayaa halkaa aan idiin tilmaamay unbaana laga helayaa ee daadadku ay ka laamayaan. qaabka aad u sameynaysana iyadana waxa weeyaan iyaduna dee waxay u baahan tahay daraasad. marka aayaddani guud ahaan waxay kuu tilmaamaysaa wax alla wixii khayraada ee manfac kuu leh ee ama wixii aad xidhanaysay ama wixii aad isu qurxinaysay ama dahab ama fido ama biro kaloo aad u baahan tahay ama xadiid in abdaadku marka uu soo rogmado qaybtaa hoose ee daadka uu ku wato kadibna deposit ahaan u dhigo goobo cayiman oo markaasi aad ka eegi karto oo goobaha aynu sheegnay laalaabadka daadku ka sameynaya halka aad ka baaraysaa halkaasi weeyaan cid kalena ha weydiin. waa barnaamijkii markaasi islaamee aqoontaada oo halkaasi aad daraska aad igala soo xidhi doontaan shaashadayda ka muuqda. assalaamu calaykum waraxmatullah.